waa safar iyo socdaal dheer oo qaadanaya waqti aan yarayn in laga sheekeeyo sida ay u taallay nolosha adduunyadan ka jirtay bilowgii nolosha aadanaha. waxaase si kooban u fasiri kara hal ama dhowr sawir gacmeed oo uu soo bandhigo farshaxaniste hibo u leh wax sawiridda. sooyaal ku kooban qoraal buugaagta ku dhigan oo kaliya ma ahayn wax ku filan in jiilalku ay isu gudbiyaan isbedelada ku dhacay nolosha adduunyada iyo sida ay u dhaceen haddii aanay ereyada qoraalka ahi la socon sawirro si farshaxanimo ah loogu tusaaleeyay. way adkaan lahayd in aanu fahamno sidii ay ku bilaabatay nolosha aadanaha ee maanta casriga ah lana jaan qaadaysa teknolojiyada horumarsan. sawir gacmeedyada ay curiyeen farshaxaniistayaasha qarniyada kala duwan soo noolaa ayaa noo sahlay in aanu ogaanno in ay jireen dad godadka ku hoyan jiray noloshooduna ay ku tiirsanayd ugaarsashada. cidna maanta ma rumaysateen wax ku saabsan sidii ay ahayd noloshii ay awoowayaasheen ku noolaayeen muddo qarniyo badan ka hor ah haddii aanay farshaxaniistayaashu noogu soo gudbin hab sawir iyo xarfo isla socda ah. sawir gacmeedku wuxuu ka mid yahay ilbaxnimooyinka bini'aadamka waana mataqaanaa kuwa ugu sasareeya taariikhdana lagu reebo. marka Soomaalida ma ahayn dad aad u xiiseeya mataqaanaa sawir gacmeedka. sawir gacmeedku wuxuu bilowday xilligii gumaysiga uu sii dhamaanayay xilligii leegada iyo waxyaabo saas ah. waxaan ka xasuustaa nin aadan isaaq la dhihi jiray oo mataqaanaa aan soo gaaray oo ka ganacsado oo artistiyaashan dhiirigelin jiray. loodkii ku soo xigay asaga waa dadkii aan la soo shaqeeyo ilaa ay hadda qaar ay nool yihiin sida Muxudiin Shariif Ibrahim Sharafow Shik mataqaanaa Jailani iyo rag noocaas oo la mid ah iyo Jaani Dheere iyo ragga hadda jooga Soomaaliya. waxaa kaloo ka mid ah macallimiinta artistiyaasha ninka hadda senatorka ah Khalid Macow Umar oo mataqaanaa runtii mataqaanaa mid ka mid ah aabayaasha artistiyaasha Soomaaliyeed. haddana ilaahay mahadiis waa senator oo abaalkiisa waa heliyay insha Allah ka badanna waa heli doonaa. sawir gacmeedku waa hidda dhaqameed kaalin weyn ka ciyaara dhisidda jiritaanka qaranka iyo kobcinta garaadka ummadda. wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa soo nooleynta taariikhda bulshada siiba marka ay bulshadu ku jirto marxalad isbedel xawaare sare ku socda ah. ka hor dagaaladii sokeeye Soomaaliya waxay lahayd madxafyo, maktabado, tiyaataro iyo xarumo lagu ilaaliyo farshaxanka, suugaanta iyo sheekooyin dhaqanka la xiriira. sawir gacmeedku wuxuu Soomaaliya bariisamaadkii u ahaa sida kayd lagu ilaaliyo dhaqanka iyo hiddaha ummadda. dadka hibada u lehna waxay lahaayeen maamuus iyo daryeel gaar ah. artiska dadka wax u maleeyaan wax aad u dhib badan ma ahan waa wax iska fudud oo easy ah. alxamdulillah hadeer ani wallahi wax goona adii barasho gooniya adii wax oo ma iskuul ama dugsi ama jaamacad wax uma tagin ilaa iska bareeba adii ilmaha markay dhashaan af Soomaaliga lama bara ayagoo ku hadlayaan is arkaan anna sidoo kale ilaa ii fududeeyay anigoo aqaana is arkaa. qarniyo badan ilaa mar aan fogeyn magaalooyin badan oo dalka ku yaala gaar ahaan kuwa xeebaha dhaca waxay ahaayeen xarumo ganacsi oo kulmiya dhaqanka Soomaalida iyo dhaqamada kale ee dadyowga adduunka lehna dhismayaal raadad taariikhi ah iyo goobo lagu kulmo. magaalooyinkaas waxay lahaayeen farshaxanno iyo dhaqan mug weyn oo dadka tusinaya soo jireenka hiddaha ee nolosha dadka Soomaalida ah. nasiib darro qalalaasihii dalka ka dhacay waxay burburiyeen goobihii taariikhiga ahaa waxayna hoos u dhigeen dardartii farshaxanka ee ay ummadani ku faani jirtay.
dagaaladii sokeeyaa dhaceen waday meesha waa laga soo cararay nafaa timid xamaran waxaan noqday dadka oo waxa la yiraahdo barakaca gudaha aan soo noqday shaqo ma jirto lacag ma jirto waxa ma jiraan sawir yar markaa sameeyay wax yar la iska kaasiina lagu noolaado iyada oo la adeegsanayo xariiqmo iyo midabo la isku dhafay ayuu artistuhu awood u leeyahay in uu si sahlan ugu sharaxo wax ay qaadan lahayd in saacado ama maalmo laga sheekeeyo macnaha artistiyaal aniga aan kamid ahay iyo kuwa dhalinyaro oo badankooda aan aniga tababaray ayaa ka qayb qaadanayno waxaan sawiraynay see jeceshahay muqdisho inay u ekaato 2030 ma aha waxa lagu heli karo photography waa mataqaanaa asaas teeda kale cartoonkii oo kale wax mucjiza oo yani la dhihi karo journalismka waxyaabaha ugu weyn uu kamid yahay nawaajiran oo hadda aamin caamir oo kale waa aragtay wax u sameynaa inkastoo anaga jaaniskaas oo kale inaan helno cartoonist aan ahay laftigay marka wixii hoosoodii waa la yareey karaa laakiin marnaba waa fan waay aad u balaaran marba si aad mataqaanaa loo sameyn karaa sawir gacmeedku wuxuu bixin karaa habab sahlan oo uu qofku u cabiri karo aragtidiisa waliba taasoo sanado badan waari karta ayada oo jilal badan ay ka helayaan taariikh ay wax badan ku fahmaan artistayaashu si kasta oo ay u kala duwan yihiin goobaha ay kala joogaan iyo nolosha ay ku kala nool yihiin haddana waxaa jirta hal arin oo ay ka midaysan yihiin taasoo ah in ay u sahlan tahay in sawir yar oo qurxoon ay ku cabiraan xaalad guud oo jirta ama aragti la aaminsan yahay balse ay adag tahay in si fudud loogu soo bandhigo ereyo qoraal ama dhawaaq ah ساعة عمل سميننا فير بالكان فير dadka leh xirfadda sawir gacmeedka waa dad leh dareen iyo faham gaar ah oo ka dhigaya in ay wax badan ku horeeyaan marka la dhex joogo bulshada caadiga ah si uu farshaxaniistuhu u soo bandhigo hal sawir oo gudbinaya fariin ujeedo la fahmi karo xambaarsan waa shaqo adag oo ay ka horeyso fikir wax urin ah sidaas oo ay tahayna farshaxaniistuhu marka uu wax sawirayo waxay uga dhigan tahay ciyaar uu ku raaxaysanayo ku dhex jirkeeda sawir gacmeedku wuxuu noqon karaa aalad muhiim ah iyo astaan loo adeegsan karo in dib la isugu keeno bulshada kala aragtida ah si uu u abuurmo jawi isfaham ku dhisan sawir gacmeedku wuxuu door muuqda ka qaadan karaa xoojinta ilaalinta iyo sare u qaadidda hiddo-dhaqameedka ummadda si kor loogu qaado nabadgelyada dareenka wadaniyadeed iyo taageeridda horumar la joogtayn karo waxaa muhiim ah in la horumariyo farshaxanka gaar ahaanna sawir gacmeedka oo astaan u ah hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida